السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركور وانا سلام دمان أصحاب شرفت لك وعنا جنال كيغا وانيقو عبد الإبراهيم iyo فيديو عصب. فضلنا ku xasuusiya deetaa markii ugu horeysay channelka soo booqatay subscribe sar furana notification ka ama gambalelka saad u noqotid daawadaha ugu horeeya. Aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin meel kasta joogtaan. Hadaba maanta intaan u gudgalin videoga ama waxaan waxaan rabaa inaan siiyo hal qof share out halkaas qof oo ah qofka aan inta badan ku arko commentigiisa videoyadeeda. qofkaasna channelkiisa waa kan fadlan isku day inaad soo booqatid waxaana biin inagu dhahayaa comment ugu horeeya halkaas ayaad ka gali doontaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaad soo booqato doontaan haddii aan Soomaali ahaan iscaawina cid kale ma caawinayso fadlan isku day inaad soo booqatid oo ka hadaba inoo bilaabo videogeena hadaba maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrin social media dhex socota taas oo ku saabsan fanaan DAYAX DALNUURSHE waxaan filaynaa taqaanaan fanaan DAYAX DALNUURSHE one day ama two day ka hor ayaa waxa uu yimi Nairobi si uu ka qayb galo fashion show oo Nairobi lagu qabanayay hadaba waxaa loo soo dhaweeyay si aan nabi caadi ahayn roog cas ayaa loo dhigay Thank you walaal magaalada ku soo dhawaad faraxsanay caawalka kulano jacaylkii reerkii qarniga 2018 iyo 17 the one and only wali marka halkani waxaan madaxweynihii Soomaaliya jimaatay madaxweynihii waxaan soo dhaweynayaa dalkani Kenya Uhuru Kenyatta magaaladii gabadhan iyo inankan nootan gabadha farxiyahay hadaba habeenkii showga isagoo ku sugan showga uu ka heesi lahaa ama loogu yeeray ama uu u yimid inuu ka qayb galo sida quruxda badan loogu soo dhaweeyay ayaa waxa uu timi gabadhaas oo ah faniskiisa ama taageerihiisa kabacdi waxay ka codsatay inuu la galo sawir ama ay video inay iskala duubto ayay ka codsatay kabacdi waxa uu ku yiri ka soo fasax qaado xaaskayga farxiyo u tag kabacdina ka soo fasax qaado si aan kula duubo video ruuhantii arintaas haday tahay arin anigu ruuhantii horta ma joogin laakiin waa sida ay dad badan dhaheen marka hadii arintaasi run tahay oo uu DAYAX DALNUURSHE ku yiri xaaskayga ka soo fasax qaado ruuhantii uu ka khaldan yahay sababtoo ah waa taageerihiisa waa faniskiisa waxa laga yaabaa inay intaas oo sanadood ay rabtay inay mar uu video la duubo oo iyaduna ku faato tiraado qof caanan video isla duubo ama ay ku faanto qofkan video la duubayo marka ruuhantii taas uu ku khaldan yahay DAYAX waa hadii ay dhacday hadaba DAYAX DALNUURSHE ayaa waxa uu ku soo qoray YouTube-kiisa wala ummadii qoodkii been bay ka gashay laakiin arinta ay ku muransan yihiin bari ayaan ka soo hadli doonaa ruuhantii waxaan filayaa inuu uga jeedo gabadh ayaa ii timi sawir wax way weydiisatay taas ayaa filayaa inuu leeyahay waa been oo camal dad kale ayaa si kale u fasirtay ruuhantii waxa jawaab laga sugayaaba waa DAYAX DALNUURSHE maadaama uu yiri dadkii qoodkii been ayaa ka gashay oo camal uga jeedo arintaas leeyahay gabadh baa sawir weydiisatay ama video waa been marka insha Allah isaga ayaan ka suginaa video uu ku cadeynayo inay runtii tahay iyo inay beentii tahay laakiin dad badan oo joogay meesha saas ay leeyihiin marka hadii taasina dhacday uu DAYAX DALNUURSHE saayirina uu ku qaldayaa ruuhantii mana aha inuu gabadh kale u diro ku ka soo fasax qaado wallahi ruuhantii ma aqliga ma wadalis isba aqli uu leeyahay way u dhigi karaa xaaskay ka soo fasax qaado haday rabtay inaa video kula duubo gabadhu maxay ku tiri waa maya marka hadii ay video kaliya tahay oo iska duubayaan ma fiicna inuu xaaskiisa iyo meel kale gabadha soo mariyo sababtoo ah gabadhan waa taageerihiisa ama waa faniskiisa marka waxa laga yaabaa in arintaasina ay si kale u dhacday oo dadku si kale u fasirteen laakiin waxa jawaab laga sugaaba waa DAYAX DALNUURSHE sababtoo ah isaga iyo gabadha la sheegayo labadoodu hadal ku dhaxmaray mid kale dhaxmaray
marka isaga unba waxa uu dhahana waa insha Allah waa suginaa marka intaas aynu soo bandhigay fadlan channel ku cusub tahay subscribe saar haddaad hore u saarteen aad u maasan tahay videogana ka ilaawin like una share garaa saxaabtaada see you next video sikastaba hanoqote sojireen ka dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka kaga sarreeyna sikastaba hanoqote sojireen ka dhaqankiyo Soomaalinimadan dadka kaga sarreeyna kwa penzi lako tamu mama nakiri sijiwezi akili umeiteka vyema mpaka na mwili oh yeah dhahiri kwa penzi lako